shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa haddaan nahay xukuumadda iyo wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada in caqabadii ka jirtay xagga fiisaha ay insha Allah soo ka warqabtaan ay shalay ku ekeyd maanta laga bilaabana dhammaan madaaradeenna Berbera iyo Hargeysaba fiisaha waxa laga qaadanayaa upon arrival waxay xaqiiqsadeen ayaata xaqiiqsatay in Somaliland ay awood buuxda u leedahay maamulka eerboodadooda bedqabka diyaaradaha iyo nabadgelyada dadka baasinjarka ee la socda diyaaradda bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammad an-nabiyil ummi habib al-ali al-qadri azim mujahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subax wanaagsan saaka waxaan halkaas kugu nimidnay guddigii madaxweynuhu u magacaabay arinta hawada waxaan saaka jidka jaraa'id u qabanay inaan ka wargelino hawlu sida u bilaabmeen halkay marayaan iyo hawlaha aan u baahanahay inaan sameeyno sida la wada socotaan waxa muddooyinkii u dambeeyay iyagoo iskaashanaya dhammaan qaybaha kala duwan ee xukuumadda Somaliland wasaaradaha kala duwan waxa dhammaan ka hawlgalnay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda cakiran ee hawada wasaaradda duulista hawadu waxay qaaday tallaabooyin waaweyn kuwaas oo ay kula wareegayso maamulka hawada Somaliland taasi oo ilaa hadda u socota sidii loogu talagalay wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga iyadoo isticmaalaysa channelka diblomaasiyad inay la xiriiday dhammaan dawladaha dunida aanay la socodsiisay xaaladda Somaliland oo aan soo bandhignay case-ka Somaliland ee cadeynaya in Somaliland ay xukunto eerboodadeeda caalamiga ah oo dawladda Muqdisho aanay haba yaraatee wax maamula iyo awood toona aanay ku lahayn doodii aan soo bandhignay waxay suuro gelisay kadib markii aan u dirnay directive-kii ka soo baxay wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta eerboodada iyo kii ka soo baxay laanta socdaalka iyo kii ka horeeyay ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga waxay xaqiiqsadeen ayaata xaqiiqsatay in Somaliland ay awood buuxda u leedahay maamulka eerboodadooda bedqabka diyaaradaha iyo nabadgelyada dadka baasinjarka ee la socda diyaaradda waxaana sii socon doonta xiriirka diblomaasiyad ee dhammaan wadamada si aan uga hawlgalno hawada Somaliland aamudan iyo marweyn hawshu wali ma dhamaan halka ay arintu ugu intaana waxa weeye khaladaadkii Somaliland ay samaysay ilaa imika sixitaankoogii ayaynu ku jirnaa tani waa qayb kamida qaybaha ugu waaweyn ee aynu ku guulaysanay ilaa imika aan uga qaadi lahayn mas'uuliyadda gacanta loo geliyay dawladda Muqdisho sida khaladka loogu gashay inay maamusho hawooyinka Somaliland oo dhan hawshaasina way soconaysaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa si dhaqso ah in arintaasi ay uga baxdo waxa la socotaan xaaladaha ku yimiday EVC oo adduunyada oo dhan ay maanta ka hadlayso waxaan uga digaynaa adduunyada in systemka noocaas ee EVC iyo sida dhaatadii iyo ummadda xogtoodiiba ay u gacan gali karayso dad xaq jir ah waxaan uga digaynaa dhammaan wadamada inay ka digtoonaadaan ama ka fogaadaan systemkaasi oo ku base garaysan corruption aad baad u mahadsantiin haddana waxaan ku wareejinayaa wasiirka duulista hawada marka ugu horeysa Ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'ala maanta waa maalin kale oo farxad leh shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa haddaan nahay xukuumadda iyo wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada in caqabadii ka jirtay xagga fiisaha ay insha Allah soo ka warqabtaan ay shalay ku ekeyd maanta laga bilaabana dhammaan madaaradeenna Berbera iyo Hargeysaba fiisaha waxa laga qaadanayaa upon arrival sharciga Soomaaliland soo dhigayo waxaan aad uga xumahay Soomaaliya inay marar badan isku daydo inay Soomaaliland ku cadaadiso ama ay culays ku saarto waxaan xaq u lahayn anagu xukuumad ahaan muddadii aanu joognay waxaan ballan qaadnay in hawada Soomaaliland aan insha Allah gacanta ku soo celin doono shaqadaas waxay noo bilaabantay bishii April ee sanadkan 2025
muddada xukuumaddani joogtay Soomaaliya laba jeer bay isku dayeen talaabo ka qaaday xagga hawada mid waxay ahayd bishii April oo ay isku dayeen wadamo saaxiib la Somaliland in laga mamnuuco inay diyaaradu qaadaan arrintaas waan ka howlgalnay meeshan waan ka saarnay annagoo isticmaalayna awoodaha aynu leenahay diblomaasiyadda iyo shuruucda aynu leenahay caalamiga ee waddankeena cidda u imanaysa aynu inaguna inaan fasax siino talaabada ku xigta ee Soomaaliya qaaday waxay arrinta e-visa oo iyaduna shalay dhamaatay waxa farxada markaa inta xukuumadda jirtay inaanay Soomaaliya u hirgelin arrin hawada ku saabsan oo ka dhana Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kaloo xukuumaddan gacanta ku haynaa sidii aynu sixi lahayn wixii hore inooga khaldamay oo ay ugu horreysay arrinta airspace-ku sidii maalintii ka warramay airspace-ka Soomaaliland laga bilaabo 10 November wasaaradda duulista hawada gacanta ku haysa dhammaan diyaaradaha maraya waxay ka qaadanayaan wixii guideline instruction wasaaradda duulista hawada si waafaqsan shuruucda caalamiga waxaan wali sii wadi doonaa inaynu horumar ka sameeyno sidii aynu wixii sharciyeed ku saabsan u dhameystiri lahayn dadkeenu waan ku faraxsanahay in dad badan oo reer Soomaaliland ay arrintan ka hadlayeen oo ay halgamayeen dhinacooda laakiin waxaan jecelahay hal mid in la fahmo arrimahani waa arrimo xasaasi ah oo shuruuc caalami ah la xidhiidha oo amniga diyaaradaha la xidhiidha waxyaabo badan waxay u baahan yihiin sida loo qaadayo iyo sida loo sameeyo inay shuruucda adduunka waafaqsanaadaan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan talaabooyinkii qaaday wax waafaqsan yihiin sharciga caalamiga iyo sharciga Soomaaliland labadaba mar labaad waxaan ugu celinayaa dalka Soomaaliya musharakan nahay inay ixtiraamaan xaqiiqada ka jirta Soomaaliland oo ah inay Soomaaliland tahay dal gaar u taagan oo u madax bannaan maamulka madaaradiisa iyo hawadiisaba anaga xukuumad ahaan waxaan u cadeynaynaa in aan wax gorgortan ka galaynin hawada in aan wax gorgortan ka galaynin maamulka madaaradeeda oo ay intaaba xaq u leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliya haddii hore khalad ugu fahantay Soomaaliland ama ugu heshay fursado waxaan u sheegaynaa fursadaas way dhamaatay xukuumadda maanta jirta ma ogolaana Soomaaliya aqbalayso wax ka yar qarannimo dhameystiran intaasaan u sheegayaa shacbiga Soomaaliland waan bogaadinayaa waxaan u cadeynayaa wali halgankii uu socdaa ma dhamaanin annagu xukuumad ahaan waxba lan qaadanaa ilaa dhagaxa u dambeeya la qaado inaan halgankaas istaagaynin aad bad ma santiin